بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يكسر دواده ورك وعصب جيجا صومالية حساتي أنت أنا ورك إنه جد قلنا وحدك عصرنا إن أتركم الطاقة أو سبسكرايب لهذا جرن كأنه لمرك أنا عاد لاك صارته قبل كانوا فلاتو استياد ولا صعته معلومات كأن دين هاي نوع رئيس وزراء صوماليا مدن حسن علي قيري وكقيب قليي munaasabad lagu qarameynayay ciidamo kala duwan oo laga soo aruurshay deegaanada galmudug iyo kuwa ahlu sunna wal jameeca ayaa halkaasi wuxuu ka jeediyay hadallo dardaarana wuxuuna ciidamada ugu baaqay inay noqdaan ciidamo qaran isla markaana maanta wixii ka dambeeysa aysan ahayn qaabka ay ku shaqeey jireen inaysan ahayn ciidamo beelawad isla markaana dawladda Soomaaliya ay xaq u leeyihiin kana amar qaadan doonaan حسن علي قير أي سوق كلا شيء إن حكومة ديسو أي دال كستو كبحنيسو اسمها مامو لو ذدي هاي وقل مذكاه قاعدة سوق كلا قير أي تلمامي إن صوماليا أي دونيان إن حكومة ديسو أي كدكتو مال الدنيا ذو أسوأ شغتكتو سوق كل ولو حتى عن كلا أرت دونا شاه كوسابسن شركة دوشين تهد أي قير أو كقدر واقعي مقالة دوس مرهب يدونا تتكدجا قال كعيه يولي عداده أي تبنيان تبشر أي كنت المامين إن يسن شركاسي ورئيساره مركو علامين يجي إنه كود دقي. ويلش هالكن جوجو حنلاقي هاي ما متشان قبيل ما متشان قلو ما متشان كوح ما ده هالكن جوجو إذا ما ده حنلاقي ما متشان قبل ما متشان قلو وحاد متشان قرن كالصوماليات ما دام اللي قرنيه. على الرباعين أتوع لسان شرفتي كرامة ومن الصوماليات ضد الصومالياتنا فعن رباعين مشيرو بالكهر إذا ما من سنين إن الرجال بدو يكون شين أيام إن الرجال بدو وضلستان إذا ما من سنين إن عيد مضى والله ذا الرجال بدو وضل لسكين أيام الحرين أيام دولة الفدرال كتم من غنايا إذا ما من سنين الدنيا اللي هي كسر جسد دونتو. سنة واحد صار قطعي إدي أنا من سنين إن الصومالي هروس عطوا هل كانت تصارك باقا ما يستاجي إلا عند الكلمة تقول اسمه مجوجين إنه إلا عن هواية والبس إن حقوق ذا إلا ذاي مجوجين إنه نقطة الصومالي إنه هنجرتي مجوجين إنه إلا عن جالسينه Soomaaliya inay noqoto meel lagu soo ordo aan laga soo ordin Soomaaliya ha noolaato ma santi dhinaca kale ra'iisul ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo maalmahan shaqadii Muqdisho kali ku noqday maadaama ra'iisul qeyr oo dhuuso mareeb digay ayaa maanta wuxuu ka qayb galay shir magaalada Baydhabo ka dhacay kaasi oo soo agaasimeen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya مهدي محمد قوليد أي شيء إن مهمته إنتهاي إن له له تلا كتمادا تذكر كقيب قلي شركاني. waxaan filayaa maanta in wax badan ay iska weydiin doontaan sidee baan kaga baxnayn shirba aadminimada laga hadlayo oo aynu mar walba qabsano sidee baynu kayb calafka iyo raashinka iyo biyaha u samayn karnaa biyaha u maamuli karnaa sidee baynu isugu tashan karnaa inagu ula soo bixi karnaa wax soo saarkeena una kaydsan karnaa xaaladdan aynu mar walba ku suganna see uga bixi karnaa yani sidee baan ugu bedeli karnaa in deeqyaro la bixiyo gacanta laga bixiyo marba inaynu ku jirno oo inagu isugu tashan karnaa ta muhiimkii taa weeye sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Koonfur Galbeed ayaa isaguna wuxuu tilmaamay isla markaana sharaxay muhiimadda iyo waliba dhibaatada ka jirta deegaanadu isagu uu xukumo meesha Soomaaliya ugu tiro badan ee bisku waa Baydhabo waxaa lagu qiyaasaa 450 half a million yaa lagu qiyaasaa dadka hadda jooga oo weli tawfiihi iyo noloshii adkaa la sii xardinayo ayna ku sii darsanayaan maalinta ka dambayso kuwa horla ay imaanayaan oo ay keenayso xalaada iyo abaarta ay isugu darsanay ay keenayaan abaarahaas mushkiladaha ay keeneen oo kale waxaa ka mid ah waxaa ku baaba'ay gabagabada shirka waxaa laga soo saaray war murtiyad waxaana war saxaafadeedkaas u aqriyay saxaafadda
agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo bini'aadamada Soomaaliya in laga wada shaqeeyo sidii hoos loogu daadejin lahaa arrimaha gargaarka iyadoo la gaarsiinayo heer tuulo si loo dhiso awoodda u adkaysiga iyo dhaqso ka soo jawaabidda musiibooyinka dadka heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo in la joogteeyo kulamada iyo shirarka si ay taas u noqoto fursad aqoon wadaag iyo iskaashi aniga maxamed yar walaalkaygiiga yaraa ma garanays waana nin heesa badan oo la yaqaan waana nin nasabo goba waana fanaanan aad u jecelahay horta cid Hargeysa ka sheegin kartaa ma jirto ninka Hargeysa isagu ka sheegtay isagaan reer Hargeysa ahayn ninka Soomaaliland ka sheegtay isagaan reer Soomaaliland ahayn maxamed halkaas ku dhashay halkaas ku koray halkaas ku barbaaray halkaas aanu ku dhalay halkaas aanu ku dhaqmay weligiina halkaas u joogaya nin halkan ka yeelan karaa ma jirayo ninka sidaa ku yiri haddii ilaahay isaga uu nin ka dhigo xiniyaa walka ka sheeganayo u leeyahay intuu dadka hor yimaada ka sheegto balwaqaas ma saa la arki doona waxa kale oo ku sheegaya nin sidaa xagtin u gaarsiin karaa ma jiro xagtin nin sidaa u gaarsiin karaa iyaduna ma jiro laakiin see qof aqli laawo ah oo isaga ay la noqotay muxuu ahaayay inuu qof reer Soomaaliland ku yiraahdo Soomaaliland ka bax ama Soomaaliland matiid ku yiraahdo dawaanin aan aqli badan lahayn bay la tahay waxaasuna wax inaad u dhaqanayno u leenahay iyo wax milgaha dadka goobta meel kaga jira ma aha fanaaniintuna waa dad birmageyda in la dhowraabay mudan yihiin waayo waa dad aan ku milayn waxyaabaha bini'aadamku isku haystaan intooda badan waa niman dadka maaweeliyo oo madadaaliya oo aynaan waliba lacagna ku siin ixtiraam inay naga helaan ba fiican inay ixtiraam hadaynaan wax kala tarayn inaynu ixtiraamnaaba fiican oo aynu kaalinta ay bulshada ugu jiraan aynu ku qadarino marka waa ayo kooxahan la qarinayay isuguna uu qarinayay idukuna aad qarinaysaan hanjabaya le Hargeysa ayaa la wada joogaa waa ayo kooxahan anigu doorta walaal waxaan qarinaya ma jirto telefoon weeye waxa loogu soo hanjabay isaguna dadka oo dhan qofku ma wada yaqaano inama yeerar ba haday halka inta ugu soo daataan wax mi wajigoodii wada garan kara qofkii cid alle cid ay yihiin hadaanu isagiiba garanayn inaguna ma garanayno laakiin dhacdadii waa dhacday kolkaas dhacdada dabagalkeedii dawladda leh dawladdu waxay leedahay CID bay leedahay ciidan nabadgelye leedahay wadanka gudihiisa wixii ka dhacay iyada mas'uulka iyada xil ka saaran yahay iyada inay baaritaankii sameysay tahay inuu weersamo baaritaanka sameeyo ma haday telefoon uu tahay meelay haboonayn CID-da iyo hay'adaha ku shaqo loo gudbiyo telefoonkaas una ay daba galaan oo inuu arinku adigu aad weyneynaysan halka warbaahin ka hadal lahaydeen dawladda horta qofka marka wax la gaarsiiyo ee loo soo hanjabo maxay gurigiisina lagu doonto sida aan maqlay anigu haddii gurigiisi qofkii lagu doontay teleefankana looga soo hanjabay dabcan inuu arrinta concern ka noqdo oo warbaahinta galiyada qasab ay noqonaysaa haddii laakiin cid lagu dilo ka waran dhowto la arrintu serious taayba kolka waxba lama weyneynayo adigan ku dhiibay adigu wariyaa tahay Soomaa xirfadaada wariyanimo adigoo sideeda u gudanaya haddii lagu waxyeelay ka war miyadaa muslimayd adan ku dhiibay miyadaa muslimayd haaya mada mustaan bay la tahay isaguna dadku buu la mid yahay kolka wax la weyneynaya ma jiree marka imika qofkii dib la gaarsiiyay waliba la yiraahdo wax buu weyneynaya isagiiba haddana la sii caaya tan kalaaba cayo anu ka daran baabana aaminsanayde wax laakiin soo weyneynaya ma jirto kolka waa inaynu ku ixtiraamno qofka dareenkiisa waxa uu ka cabanayana in wax laga qabto haddana waxba laga qaban karin in cayda laga daayay taasaas noqonaysaa ma malaynaysaa abwaan waxa jira dhinacyo kala duwan oo hadlaya oo abwaaninta iyo fanaaniinta iyo maalmihii la soo dhaafay guud ahaanba Soomaalida ma malaynaysaa arrimahan arinta ku salaysan Soomaalida wax kala dahay dambeeyaan horta halkan aynu joognaa imika inagu halkan ka hadlana halkan yaa kala hadlay miyay jirtaa cid kala hadashada adigu iga xogaalsantay cid kala hadashad adigu iga xogaalsantay miyay jirtaa halkani Hargeysa gudaheeda ilaa ma aha cid kala hadlaysi cid ay inay toona jiraan laakiin Soomaalida kale arrimahaas waa arrimo siyaasadeed walaal wixii siyaasadina waa siyaasad wixii fanina waa fan wariyaan